reer Somaliland ama Somaliland ma waxay jeclaadeen yuhuud ma annagayna naceeno yuhuud naga doorteen diin ahaan iyo dad ahaanba waxaan kula wadaagi doonaa hore waxaan lagula wadaagin anigu xataa aan kula wadaagin oo aan muuqaalo dhowr hore xitaa arintan uga sameeyay aan ku sheegin waxyaalo badan aan soo baaraa ii soo baxay waxyaalo badan oo aan dabagadiyay baa waxa ii soo baxay daaha gadaashiisa waxa ku jira dadka reer Somaliland ama waqooyiga Soomaaliya si guud u dheh ama si gaar ah u dheh reer Somaliland baa darabtida magaca rabta ugu bixiyeen dadkaasi maxaa lagu haystaa midnimaday diidan yihiin Soomaalinimaday diidan yihiin diintii iyo dhaqankii bay nooga tageen si ay u helaan ixtiraaf bay dadka qaar leeyihiin dad walaalaha adiga kula dhashay oo kula diin ah oo muslimiin ah oo Falastiin la yiraahdo xasuuqaya oo dhiigii qacmaha kula jira heshiis la garan waana ixtiraafayaan ayay ilaa ay madaxdii Somaliland iyo dadkii reer Somaliland ay sawir gacan ku sameeyay ugu sameeyeen ayagoo calaamadii yuhuudda wata ayagoo maaragtay balaayada ay ka laalaado hatta madaxweynaha ay ku sameeyeen ciro maanta waxaan rabaa inaan qodobo muhiim ah inaan la wadaago horta muuqaalkan like dheh siina share gare qof kasto caafimaad qaba ayuu muuqaalkaani anfacaya meeshaani wax diin oo la isku hayo ma jirto horta Somaliland diin in loo soo dhaxmaro waa dulmigi ugu weynaa oo mar kale kii hore ka daran hadda la soo celinayo waagi hore ee reer Somaliland midowgii Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ay kamid ahaayeen waliba qaybta jeex kamid ay ahaayeen waagaasaba la qaataba waagaasaba oo xataa aan dulminay ayaa xuquuq u ogolayno dad inay ahaayeen ogeyno maaga hadda ma jirtaba hadda waxa ogolahay malahan annagii baa waxa soo ogolaynaysaa qeyrkeen waxa uu ogolaana barre koofur baan waxba isu ogolaynaysaa aan ugu ogolaana dad kale wax su'aal noocu daara marka walaalayaal dad kale se waxa ugu ogolaan annaga wax soo ogolaynay midnimo barankii way horta waxaan cid ay la midoobeen ma jirtaba waxaan soo ogaaday inay cid ay la midoobeen ay si jirinba ayaga dantooda u imaaday maamul baa samaysanay way ku logeen maamulkii midayskii aan wada midoobnay waa burburay wixii aan ku markaas ay iskugu imaanay horta waa burburtay markay burburtay ayaga waxooday samaysteen khalaas 35 sano u dabaal tagayaan maxaa harayba tii marka 35 sano ma soo dhaqaaqin hadda meel xun maraysaaba waa magac ba ka haray magacuna hadda ma samaysmine waagi aan wada jirna samay magac hadda Soomaaliya adduunka ay ku leedahay Soomaaliya Afrika aqoonsan Carabta aqoonsan caalamka aqoonsan qaramada aad ka hadlaysaan waxa la sameeyay waagi aan isku wada jirnay wixii waagaas hore oo magacaas aan wadanaa bas wixii ka dambeeya magacna ma samaysmin waaqaca dhulkaana wax dawladnimo Soomaaliyeed oo ka samaysno oo maantay la leeyahay leela meel kasta xukunkeedu gaartay ma ka samaysmin yaa la midooba marka midnimada marka dib maxay iga soo baxday inay ahayd barankiba midnimo barankii ahayd markii horeba ayagina marka wixii dumeenba wixii waa dumeen wixii aan ku wadishin waa dumeenba khalaas siira laga soo bilaabay ayagu siirooday ka soo bilowdan waa dhiseen 30 sano waa nooliyeen kuwaas nidaamkii dawladda way anagana wareerisa ugu xiran taasa u meeraysanaya maanta waa aragtay mid ku taag taasa la soo haystaa 40,000 ciidan wax ku dhow ajnabi ah oo ilaaliya lacag ku qaadanaya in askariga Burundi hadda ka hor la wareysay Burundi u dhashay waxay Soomaaliya nabad noqoto ma barabnaba sabab حالي ويرا غوري ما دولك دالك ka dhistay halka waxaan ka qaataa $1,000 oo mushaara 500 oo gunna ah iyo dhacdhac kale awal dadka $50 xataa kuma qaadin jirin bay waa dal horta asaga dhan lacag laga sameeyay horta dal noocaas way horta amaankii dadkaas ilaalinaya beesha caalamka beesha lixad loo bixiya lacagta bixinaysa fawqacan ugu jir yaa la midooba marka hadda kadib meel la midooba ma bataale aniga reer koonfur aba qiraya yaa la midooba وأركت حمر برامبل كتير ساسا لو قلني عقفت مقالوينك أنا عصدا الله صحيحي أديك وحلا يدا عقفت قل محنا قال أديك قيلني قيلني متك عندها لا هو يدا ويل كقيلني حبارتما أوية ما بين بشيء هل كاسورت الدولة نمدين مريسا إلهي النص وكبر مركا أنا أروح كوفر أنا حلاي ميل اللم دودان يعيدا وحكو درستان أنا أمي أنا ودمشق ودمر بابا nafta iga baxaysaba dalkiisaan uga carari lahaayo meel nafta aan ku celiyaa u raadsan lahaa baan ka fikiraya horta hadaan reer koonfur siyaasiyiintan lacagta dadka xoolo inta magac wax ku cunay caruurtooda meelaha geystay xabaa fiirfiirinay khiyaaliga iyo afar xataa u nacablaysa horta meel aad la midowdaan ma jirto tii horena barankii ahayd waa burburtay adinka wax dhistay inaad go'daanna waxaan soo ogaaday waxyaalaha ku soo gala xakamida diintii markaan dhinac walba wax ka fiiriyay diinta islaamku ma diidayso inaad go'daan adduunka dhan ba kala dawladihii waad aragtay dal walba oo madax adduunka tirsan madax buu leeyahay gooni ah xuduud buu leeyahay xuduudaas ka mas'uul ah buu leeyahay
horta wax meesha maanta diinnimo u shaqaynaya oo diinta islaamka ku shaqaynaya waa yar yahay masaajida baa lagu tukadaa nin walba nafta iyo dantaa Soomaaliland marka inay go'do wax diin ah oo diiday siyaasad waa baabkeed siyaasad ma garan hawlahaas iiga xaqayga dhig siyaasiyan qof walba siyaasadiisa isaga yaqaan laakiin waxaan ka hadlayaa diin yaan lagu soo gaban walaalayaal diinta islaamka ma diidaysa inay go'aan horta siyaasi iyo juqraafi ahaan ma diidaysa Allahu a'lam taas dadkeeda loo diinaya takhasuskeeda waxaan kala soo ogaaday dalka la yiraahdo Qatar dalka la yiraahdo Kuwait dalka la yiraahdo Bahrain dalka la yiraahdo Oman dalka la yiraahdo Imaaraat dalka la yiraahdo Djibouti soo lix wadan ma ahan inta kale ama Afrika ka tirsan ama Carabta ka tirsan ama Asia ka tirsan iska badhaaf lixda wadan ee wada taqaanaa oo midna Soomaali ah oo walaalo ah oo naqaano Soomaaliland ay diris yihiin oo Djibouti la yiraahdo iyo lixda wadan ee Carabta ee Khaliijka ee hodanka maanta aad aragteen dhulka ay ku fadhiyaan saddexda wadan lixda wadan isku dar dhulka ay ku fadhiyaan Soomaaliland baa ku laba laamaysa dadka waxa ku leeyahay maalinka dawlad noqon kara ma dawlad qabiil ba horta qabiil kaliya ma baahan ba waa qabaa'il Soomaaliyeed lixda wadan bay ku laba laamaan oo ka badan yihiin 5 milyan ilaa 7 milyan ba dadkooda u dhaxeeya ma hal qabiil ba inta noqon kara Ilaahay ku dharshay Soomaalinimada lama diririyaan ayaga Soomaalinimada asalkaada hore aan uga hadlay ku soo celin mayo qofka aqli leh weeyo ayaa taa fahmay yuhuud ma jeclaadeen marka walaalayaal horta taas xaga inoo dhiga baraanki horena waa aha midnimadan maantana wax ma jiraan waxay la bidoobaanba makaalay nala baaba'aba koonfurti waa imisha harag maamul goboleed mid wax u galma laha mid u gali kara ma yaa la midoobaa su'aal aniga naftayda weydiinayo reer koonfura walaalaha reer koonfur oo weydiinayo wixii aqli leh muslim wax garanayo fahmay yaa la midoobaa ma karanayna cid la midooba balaa yaa la midoobaa ya meesha waxa ma yaalaabe wallahi waxa ma yaalaa ilaaha baan ku dhaartay hadda siyaasiga Soomaaliland ninka odayga hatta cirra ka bilow odayaashii waaweynaa ee wada jirkii Soomaaliya soo shaqayn jiray ee jumhuuriyaddii midowga Soomaaliya ku soo shaqayn jiray ee Baydhabo ka soo shaqeeyay beledweyne ka soo shaqeeyay Jawhar ka soo shaqeeyay Kismaayo ka soo shaqeeyay Dhuusamareeb ka soo shaqeeyay Gaalkacyo ka soo shaqeeyay Xamar ka soo shaqeeyay Marka ka soo oo dawladnimadii ku soo shaqeeyay ilaaha baan ku dhaartay maanta hadduu tago dhulkaasi uu qaracmaya nafta ka baxaysa qaraacan dartiis yashaada walaalo joog marka dalkii uu ku soo shaqayn jiray dawladnimadii iyo dadnimadii ma jiro dad in yar oo dadkii dhiigooda meeranaysa iyo in yar oo daalan oo baaba'san iyo dhul baaba'ay baad arkaysaan bas waa qaracmaysan hadda dhulkaad ku soo shaqaysana ka soo shaqayseen ee dawladnimadii Soomaaliya midowgaas aad ku soo shaqayseen hadda maanta aragtaa waad qaracmaysan anaga qaracan u sii dhimanay marka horta taas waa midaas yuhuudna ma jeclaan yuhuudna heshiis waa la geli karaa haday cid kale oo muslimiin isdirirayaan hadii kale waa la geli kartaa kaligoodna kuma ahee maslaxada horta arintaas ku qumaysa maslaxa iyo mafsad maslaxa ma kugu jirta arinta heshiiskan ama kristaan ha noqdo ama yuhuud ha aado ama buudi ha aado yuhuud wax ka gaar ku ah ma jiro nabi maxamedna markuu magaalada madiina yimid calayhi salaatu wasalaam wuu heshiiyay si sharkooda ugu yaraan uga nabad galo waxaanu ognahay oo aanu xafidsannahay nabi maxamed inuu dhintay calayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam inuu dhintay dircigiisii gaashaankii dagaalka hadda waa dagaalkii wuxuu waranka iskaga difaaci lahaa waa gaashaankiisii nin yuhuuda asagoo carbon u haysto raashin uu ka soo qaatay darteed buu ku dhintay sallallahu alayhi waa sirtii caskariga ahayd waa gaashaankiisa asagoo nin yuhuuda haysto yuhuuda ka war ma waxaad u malaynaysaa nabi maxamed lacag iskaga bixiyo raashinkaas inuu waayay wuxuu ka soo hatta hadduu asagu waayo wuxuu ka soo lacag qaadan karaa oo dhihi karaa iigad saxaabadii taajiriinta Cabdiraxmaan ibn Awf Uthman ibn Affan buu dhihi karaa yuhuudkaas raashinkan ka rabaaye iiga soo gada buu dhihi karaa ciddii kartay cid ka meermeeri kartay ma jirto nabi maxamed naftooda ka jeclaay sallallahu alayhi wasallam maxay arinta ka dhiganta qaarkood waxay ku leeyahay baahi nabi maxamed waxa ma hay sida darteed ma aha taas si uu ku ogeysiiyo yuhuud la macaamilkeeda xataa geeridiisa kadib inay bannaan tahay si ku ogeysay way taas way muhiimad nabi maxamed lacag iskaga bixiyana ma waayeen saxaabada taajiriinta uu soo gaday lahaa sallallahu alayhi wasallam nimankii quraysh ay nabi maxamed heshiis buu la galay ee saxaabada xoolahoodii meero duugay oo dhulkoodii qaatay oo maka la wareegay dhulalkoodii ee qaarkood xirxirtay nabi maxamed waxa uu rumaysan darteed ee cadaabay buu heshiis la galay حتى أطلع داي مانتو يهود مسلمين بيلاينيسا أو دجال كلها هيسا أنا قد دجال يقوم هيسو كله وانله شينيا نبي محمد بوالله شيء حتى يقول دجال حوله هذي هيستا صحابة دي حوله هذي أي هيستن قريش حوله هذي كده حاليا أو كحوجن وحيلو وريجن قريه هذي حوله هذي وحرب بلو وريجن
مع ذلك النبي محمد ما دهين ما كوي ساس نوقلي ما هشيس لما قليه هشيس كو حريه سيده مصلحه مفسده كو حريه maxaa dantaadu markaan ku jirtaa bay ku xiranta maxaa awoodaadu gaarsiisan tahay bay arrinta ku xiranta maxaa dan ka leedahay meeshan bay ku xiranta heshiiska ma taqaanaan heshiiskaasi waa heshiiskii Umar ibn Khattab iyo saxaabo badan ay ka biyadiideen heshiiska qodobadiisa waxa kamid ahaa horta nabi maxamed oo boqolaal kiiloomitir oo qarfa ah oo dib badan oo soo jiray oo cimro beedka Ilaahay u socday way ka hor istaageen waxay dhaheen maanta kuma ogolaanayno dadka nagiiba duufsatay inaan noo soo cimraysato beedka anagu xukumayna ku meeraysato ma ogolaanayeen maxamed oo barta ka noqo 20 kiiloomitir buu u jiraa Madiina Makka nabi maxamed 20 kiiloomitir wuxuu soo jiray boqolaal kiiloomitir oo qarfa ah oo kuleyl ah hadda wadooyinkan iyo adduunka loo sameeyay ma ahayn barta ka noqonaysa bay dhaheen kow horta heshiiskaas oo adkaa labo waxay dhaheen wixii anaga naga yimaado oo diintaada qaata waa noo soo celinaysaa bay dhan asagoo xirxiran bad noo soo dhiibaysa hadda waa nabi maxamed nin u yimid rasuulka Ilaahay waan ku rabay waa ku raacay waa la qabanaya waa la dhiibaya yaa loo dhiibaya gaaladu ka soo cararay Quraysh oo wax naxariis aan ahayn baa loo dhiibay heshiiska qodobadiisa kamid ah oo xadiiska Bukhari akhriye siiradan akhriye waxa kale oo kamid ah adiga wixii ka imaado anaga nagu soo biira kuma soo celinayna bal heshiiska soo qaraariya fiiriyo walaale laakiin ay muxuu fiiriyay maslaxada ka dambaysa ila markii dama Umar yiri rasuulka Ilaahay soo nabi mati siirha nacam Ilaahay rasuulkiisa ana soo xaquma taagnin siirha nacam ha gaalada wixii dhinta soo naar ma galaya nacam wixii anaga naga shahiidana jannay galaya nacam marka maxaa diinteena dulinimada maxaa u qaadanay yiri Umar baa dhahay Bukhari ku qoranta dulinimada maxay tahay ninkii ka soo baxana kuma celin ki anaga noo soo celi ka soo carara meeshan ka noqda maxay tahay dulinimada rasuulka Ilaahay markaas nabi maxamed wuxuu yiri Ilaahay rasuulkiisa ana Ilaahay amarkiisa aan ku shaqeeyaa Umar waa caraysan yahay arinta ka biidiina Abu Bakar buu tagay sidii buu ku yiri Abu Bakar ma arinta macquul bay kula tahay soo yiri anigu rasuulka Ilaahay yahay amar Ilaahay inuu ku shaqeeyo baan ogahay Umar oo meel fariiso heshiiskiina mirihii ka dhashay waa loo bogay maslaxa weyn baa ka imaata hada waa heshiis qaraar maanta Soomaali badan oo culimo ah oo Soomaaliland arrinta ku dareeday noolaan lahaayeen nabi maxamed Ilaahay ku gaaloobay lahaay wallahi ku gaaloobay lahaay aqliga koobani wax maslaxa oo garanaya malaha aqliga koobani wax uu mafsada iyo maslaxa kala garanaya malaha arintaana ku imaatay horta qodobadaas markii heshiisku uma qumayo yahuud iyo nooc kale iyo wuxuu ku qumayaa maxaa maslaxad dadkan ku jiray reer Soomaaliland aniga iyo adigaba ayaga maslaxadooda ka yaqaan waxba diinaya ugu soo kaban taas waa qodob horta waxa saqiraya oo Ilaahay horti ka qiraya oo aan ku dhaaranaya wallahi وبالله وتالله سر Somaliland يهود جعلان والله بكون دارتي ورما جعلته حتى سياسيين وما جعلين دين اسكبر دافي حتى سياسات ما تعيشي وما جعلين والله وبالله وتالله حتى دارتي ان شاء الله قدر يبي واوغه ان حتى دين اسكبر دافي ان حتى سياسات ما جعلان horta taas waa mid wallahi وبالله وتالله بيس جعلان والله وبالله وتالله بان ku dhaartay baysan Soomaalinimo xataa nicbay Soomaalinimadana ayaga asalka u yihiin siyaasaddaas ana kala geysay ana qurmiyay siyaasaddaas in heerka gaartana ana keenay dantooda iyo maslaxadooda ay fiirsadeen anigu hadaa maslaxadayda dantayda garan waaya hatta dawladda Soomaaliya hadda maanta Netanyahu iyo gruubkiisa la heshiiso anigu ma arko wax dhiba sababtoo waxay ku xiran tahay maslaxada iyo siyaasadda ku xiran tahay dadka siyaasadda iyo maslaxadooda ayaga ikhtisaas u leh fasalu hal dhigrin kuntum la ta'lamun China heshiis leeyihiin oo Mareykan bay heshiis leeyihiin kuwan maxay u duwayeen anigu ima kala duwan kuwaas hadda waa China oo diin ba haysan ba kuwan diin ba haystaan ba gabdhooda gursan kartaan baa kuwa xataa China gabdhooda ma gursan kartaan baa heshiis la ah حتيدي كوا كلا هندي الله هشيس لها بغلال با اعتراف هشيس لها حاجة قار كوا أنا يجا كوا شاشة الجلاش هذا وحوجه حكومة أرنت عمرك حي مات فلسطين هرت فلسطين ما أكتهين ضد كلها إنها خيامين ويهود اللي هشيين توضي بدنيد ما أكتهين رأي فلسطين بدن كوا دلالة شدي إسرائيل إنها هيستان هرت ما أكتهين boostada waxa ugu soo dhacaysa waxa loogu soo diro boostada Stripe ugu soo dhacday horta ma ogtii khilaafkoodii iyo kala tagoodii iyo is-aaminaad la'aantoodii baa chance siisay Netanyahu iyo nidaamkiisa horta qof marka dhulkiisa asagu dayacay dhulkiisa asagu u bixiyay asagu isku kalsoonayn asagu is-aaminsanayn anigu waxba uma qaban karo sadarteed carabtu dhaw ku daashay dawladda carabta dal walba xeelan wax xuduudayda dadka ka mas'uulaha waxa laga magalin wax Falastiin lagu sheegay horta waa magac wareegaya magac wax jira ma ahan xaqiiqo ah horta ma ahan ayagana isqiyaamay Falastiinta lagu sheegayna boqolkiiba 20 waa Kristaan horta ogow
معلومات كان وين أوقاتها ورت فلسطين بقول كيف لباتن وكريستان بقول كيف تمن ويهود أنت كلام مسلم يقيمك كلام نقطان فلسطين تلقوا شيء غريبة لا الشد إسرائيل بوضع حيستان بوصلوا ده استعماليان بيها يعبيان أيها أسود ديني حتى عرفت ما أنت نبوقة البيت كإلهي إلهي كحرية أقصى في إسرائيل برضو بهانيس ما قصة كتباتي غساه دارت ما أنت أيها في سواد بهانت maxaa heerka gaarsiiyay heerka iskama imaan reer Falastiin baa isgaarsiiyay ayaga iskhilaafay ayaga baa iscunay ayaga baa islaayay ayaga baa farqooyin noqday ilaahay wuxuu leeyahay wa'tasimu bihablillahi jamii'an adigu marka mid tahay baa dadka kale wax la qabsan kartaa dhulkaadana qabsan kartaa dhul waxay iska heleen marka baylaha oo dadkeeda is haystaan baa is haysanayaan saaminsanay ma ogtihiin ghazadan lagu sheegay sida aragtay loo silciyo loo go'doomiyo loo dhibaateeyay ma ogtihiin hadda koor waxa xukumi jirtay Masar dadkeeduna xornimo ku noolaayeen فلسطين تأخذ وين قميصني ساحمر نمكلي يا رادو مصاريد وين قميصني نوقع بحر حدودين مصر اسمها دم هي ويا ما مش هنا مصر بلوق عرسني ويكبحر ما ملك دولة كميل عالم فوق صناعة يا حكومي سي حماس با وحسن يستي سو ويرتي xoog ku qabsatay dhibaatadii halkaas ay uga bilaabatay marka maanta markii 100,000 wax ku dhow laga dilay magaaladii dhanna dhulka lala simay bay xamaas waxay ogolaatay inay maamulka wareejiso horta Falastiin lagu sheegay waa noocaas ayadoo dadku dhiman intaas oo tiraa dhiman ayadoo magaalooyinkaas inta magaalada dhan dhulka lala simin bay diiday inay wareejiso hadda waa aragtay heshiiska maxay ogolaatay inay hub ka dhigto inay wareejiso maamulka ay ku wareejiso qaar kamid ah wixii dilayay qayb kamid ah qayb ka yihiin Mareykanka ay ku wareejiso marka dibka horta anagu muslimiinta hadaan nahay dibkaanu gool u aragnaa markii wax la xasuuqo oo wax la baabi'iyo ba heshiis ogolaanaa marka intaas oo dad intaan la layn 70,000 iyo ka badan la layn magaalada dhanna dhulka dhala simin oo isan xataa u maanta in lagu noolaado aysan u soo banayn inta heerka iyadoo la gaarin bay maslaxada fiidin lahaayeen maanta maxay ku qasbanaadeen in dhahnay heshiiskan galayna maamulka caalamka dawladda caalamka Mareykanka oo geeyay majliska salaam baan u diibayna maxaa laga faa'iideysay meel kale baa aadin dalkana ku mitaalinaya xamar oo barwaaqa taal oo dadku kala degan yahay xogaa qabqabilaa iska xukumaya laakiin dhibaato badan ka jirin ba maxaakiimtu imaadeen maxaakiimtii waxay qabsadeen dhulkii xamar oo qabqabilayaashii warlooskii ka takhaluseen dawladda Soomaaliya oo taag daran baa waxay ku nooshahay meel jawhar la yiraahdo ama baydhabo Cabdullaahi Yuusuf heshiis la galaaliy nag waa diideen war heshiis ogolaada war ra'iisul wasaare la siinaya war ogolaada nag khartuum xagga gee waa lagu rafaaday ma waxay dheen dawladana waa qorto tubsanayna markii dad waxay dheen waxaan ku soo tukanaynaa hordada ka tustay mugta Rio arday sababa balaayo isku soo jiideen Ethiopian ordaya oo xamar waliga arag bahalkan soo yaacay haday leeyishin lahayn walaalahoodii oo intay miyirka isu yeelaan wax walba ay rabeen waa loo yeelayay balaayo ma dhacday kumaankumna lama xasuuqeen xiriyaha qaxootina saas butloom cidii ma yaanta xiriyaha qaxootina timaada arki lahayd qaraan ka jiray 2008 haye markii magaalada xamar la baabi'iyay oo balaayo dhan soo gashay oo ciidamada jaaniba liiray nabad ilaahan bay sameynayaan aanan aqoon naloo keenay oo Itoobiya soo gashay oo la isku raftay oo la isnacay bay heshiis oo kala hadeen qaarkood intooda badnayd yaani mid kamid ah madaxweyne Shariif baa madaxweyne laga dhigay adeero inta la baabiin maxaad oo galaan weydeen hadaa kursi rabtaan laakiin diin baa loo adeegsaday marka diintan waa la isku adeegsadaa waa la isku baabi'iyaa magaceeda la adeegsadaa dana khaas ah leeyahay war walaalayaal oo dadka xasuuqin oo magaalada baabiin heshiis maxaa galay weydeen sideeda maanta muslimiinta iyo afrikaanku markii la baabay wax ogolaadaan la baabao baabaasan gool u arkaa marka baabaas ayaan gool u arkaa maxaa dhacay in amisoomti ay sii joogto magaceedana loo bedelo ay gu lacag qaataan ay dhooban yihiin iska jiifaan gabdhahayga qaar loo geyninayo hadda waa aragtay waxa la soo sheegay gabdhaha laga iibinaya qaar la uuriyay gabdhihii amisoomti haye maxaa silacaan soo jiiday kii wadaadka ee diinta sheeganayay baa waxaan oo dhan soo jiiday masaa'ibka marka Soomaaliland ilaahay baa idin jeclaaday wallahi billahi tallahi ilaahay baa idin jeclaado oo idinka badbaad sagaashka dad ku biiri lahayn sana ahaa leeyahay maanta soo noqon lahaydeen dadkiini go'aanka idin qaadayna u duceeyay qaarkii nool la ka duceysta intii dhimatana qabuurtooda quraanka dul akhriyo wallahi waa badbaadeen anu hadda garan may Soomaaliya koonfurta yaa baadil ku taagan yaa xaq ku taag waa lagu wareero waa lagu baabaa wuxuu marka diin ma ahan Soomaaliland baa lagu xumeynaya mooyana diin ma Falastiin ayada iskhiyaantay horena yuhuud oo la gashay intooda badanna waa isdiibeen hadda haddii diin tahay oo dhul muslimiin ah
ayaa gaala haysta ay tahay meeqa gaala oo dhul muslim haysto xoog ku haysto dhibaataynayaan heshiis la nahay hadday wuxuu diin iyo daacad naga tahay meeqa dal oo gaala ah oo xataa qaarkood dabcaabudo oo muslimiin dhulkood xoog ku haysta oo dhibaataynayo oo hariye habeen cadaab iyo xataa salaada aan u ogolayn oo soonka u ogolayn xeer la leeyahay oo maalgelin oo sameeyo ma sha Allah la leenahay madaxweyne baa booqda leey meeqa hadday diin tahay taas wuxuu diin maahan reer Somaliland maxaa horay loo yiri reer Maka luuqa qoda ayaga yaqaana reer Soomaalina ayaga maslaxadooda yaqaana dhulkiina wanaagsada goboladiina dhista hawlihiina haydin socdo waxaan kalena waa iska imaan doonaan waa ka dhul weyntiin wadamadan hadda idin sheegay waa ka barwaaqa badantiin wadamadan hadda idin sheegay marka dalkiina wada jirkiina ilaalsada reer koonfurkana iska ilaaliya aniga xataa iska ka ilaaliya been idin sheegay iska ilaaliya nimcad haysataan nimcadana waxa la yiri nabigu yiri nimca kasta wax mid wax hasdaya jire ilaaliya aniga ina leeyahay meesha wax weyn ka jiraan hadda waagi ogeydeen 60kii nagu soo biiriseen 70kii ogeydeen ilaa 80kii ilaa 90kii ogeydeen dawladda Soomaaliyeed adduunka ka shaqeyso ma sha Allah hadda ogeydeen waagi u dambeys finish abar marka meelaad ku soo noqotaan u garan mayaba xira abar oo laga guulo lagu soo noqdo xibir aaran degan roob ku daay lagu soo noqdo أنا أقرر مي رنت أنا وكهلا رنت ها قرارات أما هكون معاناته هذا يكون طالع لكن ركوفر وإيجا مقراتك عيا ضدك الصوماليين وإيجا مقراتك عيا كلام ماشي حمية لا فلسطين عربتي ومركو وروحي كدجان عربيين ومسلمين ما دي يهيلي ذي ويكسارين عربتي أوكر جاريسين عربتي كلاسي خيانتي مصر مركي دمر والله قبح دجالك كدي من مصر مصلحة ذي في ستي تلابوب بأمر سنوات كدجي هشيز بالله قلي هبرتين وشيء يقول مرك عربتي أنا ضلك يجوبني فلسطين تبع حتى عندها نوجا بحر كان غزة مركز حكومية ودبعت كتير إنه أي بنانيد أو عادي أحد مركز ما كان قبضنا وحل مرسيني يقول كان تقطين فيري ماشي عدالة ماشي دبعت هذا كتيرته غزة دي أو إنما كان حكومية وحي كان صدين أو يسولوا ويستين نمن داعش وسطه أو مصر لا دريرية وانصاروا بيت الله المقدس لبح يوم مرة لقى تخلصي بيقولوا لك سومري تيرن هوك si Masar loo diriro Masar dhulkeeda xirata marka qof walba marka madaxda carabta maxay dheen nin walba aan ka masuulahay buu dhulkeega maxaba waxaan daba galiyay ugu dhibay kaliya waxaan ka naxaya aqsadaas oo Baytullah al-Aqsa saddexda masjid kamida in loo safraba loo niyeysto cibaado ay tahay ay dhibaataynayaan nimankan laakiin heshiisku wuxuu ku xiran yahay maslaxo ku xiran yahay wuxuu ku xiran yahay maxaa maslaxa ka iman kara haddaba ha qaraaraadee buu ku xirantay Soomaaliland waxay u arkeen in maslaxa ay ka dambayso heshiiskan diintoodana ma jeclaan dhaqankoodana ma jeclaan siyaasadkoodana ma jeclaan laakiin maxaa ka iman doona alleela dalal badan baa aqoonsan doona alleela hadana badan baa wax loo soo dusin doona alleela wax badan alleela qadiyadeeniba wayba ka faa'iideen baa horta soo moogideen qadiyadoodiba caalamka dhan bartayba heerkii hore aan loo aqoon heer ka badan bay gaartay miisas badan baa lagu falanqeeyay way faaftay gaaladii qaar maxay tahay Soomaaliland iyo dadkan ay nimankan intay ordan u aqoonsadeen maxaa meesha yaal talo dalkan muxuu ahaa wala baara waxba u bilaabmay ba aysan horay u ogeyn maslaxadooda bay warkaan dadkan maslaxadooda ayaga yaqaana mafsadada iyo maslaxadana heshiisku ku xiran diinta dhan waxa loo soo dejiyo waa maslaxay waxaan aad sameynaysid maxaa dhibo ka iman kara dhibka ka iman kara iyo dheefta uu leeyahay keeba badan waa la isku miisaamaa Soomaali waxay fahmi laadahay waa waxaas marka ilaahay anagana ha noo gargaaro adinkana meesha Allah idinku xafido waxa dano aniga gooni aan ka leeyahay walaalahaas ma jirto oo aan ka sasabanayo wallahi si jirin laakiin run baan arkayo wax la qoray oo la duugay la qariyay baan arkaa been ina ku noolahay khiyaali baan arkaa wax diinta ilaahay lagu soo gabanayo rabo in lagu dulmiyaan arkaa juqraafi ahaan loo dulminayaan arkaa khiyaali ina ku noolahan arkaa ina u baahanaa sheeganaya haddana waxba uma ogoli waxa qariya wacaaya oo fogeynaya haddana waa raba nin baa laga sheegay afgaal af muslimiin aan kugu imaado annaga horta waxna la keenay maxaana horta wax madaysan la imaano annaga waa is haysana maamuladeenna isma aaminsana xamar oo lislaha leela waa caasimadii Soomaaliyeed waa aragtay oohinta iyo rafaadka maanta ka socda iyo qaylada iyo sida aan lagu naxayn masaakiinta iyo dadka waa aragtaa lacagteedina lidiid Soomaaliya lacagteeda ma shaqeynayso door ya door isticmaala Mareykan ba يا dadka dhan ba dibadda loo jira waa maya masaakiintii kun ka shilin isticmaalay maanta waxay isticmaalayaan waa aqayhi waa baahan haye mar meesha sababkeeda bare war meesha markaan wax la imaado oo aan wanaagsanaado waan dhihi karaa warkaalay waxaan haystaa ila cuna dhimanaysaane laakiin ayaga maanta u baa waxa naga siiyay haysata anigu waxaan aaminsanahay hadii ilaahay uu aqoonsi badan siiyo xataa Soomaaliya ay aqoonsato inay
dheef mooyaane dhib aana ka helay baan ogahay marka diiniya loogu soo gaban yuhuud way necab yihiin siyaasadooday necab yihiin diintooday necab yihiin aysan rabin aysan jeclayn islaam waye muslim waye laakiin maslaxadii siyaasadeed ba halkaasi ay ka arkeen maslaxada siyaasadeedna ma ahan adigu magac quruxsantaad samaysatid inaad ku weerarto saanay sameeye kuwa ka liita yuhuud oo ka xun baa xiriir la leeyahay marka wadankayga horta aan isku furo wadankayga aan xoreysto wadankaygu ha noqdo mid xuduudiisa dhinac bad iyo biri iyo hawo anigu aan xukumo oo askari Soomaaliyeed oo karaamaysan oo mushaar fiican qaato oo aqoon leh oo karti leh oo reehib aan ugu soo xumin oo xukumo reehib aan lagu keenin meesha oo xukumo dal sharaf leh dadkiisu sharaf leeyihiin haweenkooda ay caafimaad ku seexanayaan farxad ay ku seexanayaan ubadkooda waxbarasho ay u dareerayaan waxay wax ku bartaan ay haystaan jawga haystaan buundooyinkii loo dhisay wadooyinku isku furan yihiin dal barwaaqaysan lacagtiisu shaqeynayso 1 shilin uu shaqeynayo 10 shilin ay shaqeynayso 50 shilin uu shaqeeyo ilaa 2 shilin uu shaqeeyo dal noocaas markaa noqdo markaas Allah na gaarsiiyo markaas waxa markaas waa dhihi karaa aan wada hadalno hatta laakiin hatta hadaan wada hadalno yaa la hadlaa qof waxba haysan miyaa la hadlayaa ana wax haysta horta wax soo noqo markaas aan soo imaan ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo dambigeena aan Allah dhaafo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa dalkayga inuu nahay nabad إلهي سي سبحانه وتعالى يدقنا سياسة إلهينا قلبي قد قليا مدحدا سياسيين تسيني ربي أقبقان برشدا مساكين تا يعني إلهي أقبقان سبحانه وتعالى الله قرن سي إلهي عافي ما تاما هيدا سي إلهينا قفل بميشو جوغا الله كو آمين يلو إلهي سبحانه وتعالى انت قرباه جوغتا الله كو حفظه شرط بلايوينك الله يدنك حجابه انت دلك قديس جوغتنا الله سبحانه وتعالى فرجي خيره هوفرو رسو مالنا الله ميشو دا كو بركي أبارتا الله نقصارو إلهي سبحانه وتعالى أنا يرت شقه سهل أقول إلهي سبحانه وتعالى نيدو داو سعلي ونيت سبينه أدبد ما سنتين أنت سانج على استيبل إن المركة لك ده غديتان مربوع حبائق الصور دعية مركة أريما أن أقاذي من ربع مركة مثلا إن لو ذاقه بل هالشيء حديبية النبي محمد قارضي قريشين لبك أوجيستي والله قلي يهودي ودرعيسي وقرنتي بل حكمتها كتير بل صابار وأقاذي وفهمه reer Somaliland iyo waxay ahaan jireen baara reer koonfur maanta say ku nooshay xaaladeeda fiiriyo oo baara maslaxada adduunka siyaasadaha iyo sida la isku garbiyo iyo sida la isku ximeeyo iyo bal fiiriya jawga adduunka maanta ka jira fiiriya qadiyadan Falastiin oo mar hore dadkeedu xataa ayagu ay naceen bal fiiriya wax badan baad ogaanaysaan oo idin soo baxaya laydama gaadayo khiyaali iyo caatifad iyo durbaan yar oo laydin toobana ma hor ordaysaan shidaalna oo ma noqonaysaan qaylo iyo buuq iyo dagaal iyo shidaal leeyahay ku shita ma noqonaysaan dhalinyaro إلهي سبحانه وتعالى حق هنا وفانسيو اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللهم آمين جزاكم الله خيرا